waxaan jeclahay saakin aan idila wadaago wafdi dowladda Soomaaliya ka socdo oo horkacayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxay ku sii jeedaan dalka boqortooyada Saudi Arabia halkaas oo ay kala shiri doonaan dowladda Sacuudiga safarka ra'iisul wasaarahu waxa uu ku saabsan yahay martiqaad oo ka helay dowladda Sacuudiga dabcan waxa laga wada hadli doonaa arrimo badan oo ay ugu horeyso xiriirka labada dal ee sooyaalka ah ee taariikhiga ah ee muhiimka ah ee istiraatiijiga ah iyo isbedelada gobolka iyo dowladda inteeda kaleba ka socdo isbedeladaasi oo khuseeya dalka Soomaaliya iyo dowladda Saudi Arabia waa shir labada qaybood ay kaga tashan doonaan waxa kala gudboon labada dal waana muddo kooban ayuu ra'iisul wasaaruhu joogi doonaa dalkaas haddii Ilaahay yiraahdo natiijada shirarka iyo booqashada iyo safarkaba soo noqoshada ayaan la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed oo adeegiisa asaga lagu maqan yahay iyo holiis maalmarinta danihiisa